Xeebaha deegaanka Noordiland ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa iyada oo ay ka socoto shaqo nadiifin ah laga helay meydka qof yaalla goobtaasi, waxaana lagu wargeliyay booliiska oo iyaguna si degdeg ah goobta ku soo gaaray, iyagoo markiiba baaritaan ku bilaabay goobta iyo dabagal ay ku sameynayaan waxa kalifay dhimashada qofkan meydka ah ee laga helay xeebta waqooyi ee dalka Norway. Taliyaha howlgallada booliiska Tommy Page ayaa isagu ku waramaya in ay booliiska si degdeg ah ku gaareen goobta markii lagu soo wargeliyay dhacdadan iyo meydka goobta yaallo, maadaama ay nadaafad xooggan ay ka wadeen dadweynaha xeebta magaaladaasi. Waxa ayna booliisku sheegayaan in ay hadda baaritaano ka sameeyeen goobta laga helay meydka. Waxa uuna taliyaha howlgallada booliiska Tommy intaa ku daray in ay hadda baaritaan ku bilaabeen meydka qofka goobta laga helay si loo caddeeyo aqoonsigiisa, qofka uu yahay, waqtiga dhimashadiisa iyo sababaha suurtagalka ah ee uu u dhintay. Waxa uuna booliisku ku waramayaa in hadda baaritaanadaasi ay ku socdaan meydka qofkan laga helay goobta, iyadoo booliiskuna ay baaritaano iyo dabagallo xooggan ka wadaan aagga laga helay meydka qofkan. Booliiska ayaan ilaa iyo hadda cadeynin in ay jiraan dad la baadigoobayo oo la baafinayo oo ay dadkooda ka maqan yihiin aanan lagu soo wargelin, taasoo iyaduna calaamad su'aal gelinaysa waxa uu yahay qofkan, inuu yahay qof magaalada ka tirsan iyo qof meel kale ay badda ka soo qaaday. Ha yeeshee baaritaanada iyo hubinta ay booliiska iyo hay-adaha caafimaadka ee ku shaqada lehba ay wadaan ayaa lagu soo waramayaa in lagu ogaan doono waxa dhacay, sida ay u dhaceen iyo cidda uu yahay qofkan meydkiisa laga helay xeebaha waqooyi ee dalka Norway. Arrimaha noocan ah ayaa waayadii dambe sii kordhayay, waxaana jirtay meydad laga helay hawdka, xeebaha iyo sidoo kale wadooyinka dhexdooda dad si aadan loo jirdilay oo lasoo dhigay. Waxa ayna qayb ka yihiin dembiyada sii kordhaya ee ka dhacaya qaybo kala duwan oo Yurub oo ay Norway qayb ka tahay. Waxa ayna hay-adaha ammaanka iyo dambe-baaristuba sheegeen inay hadda kiis ka fureen baaritaankoodana ay natiijadiisa dib ula wadaagi doonaan warbaahinta. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.